waxaana wanaagsan daawade meel walba waa joogteed kuna soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan waxaad ka daawanaysaan barta youtube-ka ee Marcadda Show. fadlan like saar sheekada si ay dad badan u gaarto annagana dhiirigelin inoogu noqoto. qaybtii hore ee sheekada waxay noo joogtay markii ay soo galeen qaybtii uu Marwaan uu ka deganaa dhismaha ayaa albaabkii ay garaaceen balse cidina uma aysan jawaabin. kadibna Daariq ayaa ninkii la socday waxaa amar uu ku siiyay in albaabka uu jibiyo. markii uu jibiyay saddexdoodii guriga Marwaan ayaa ay dhex galeen. markii gurigii ay galeenna waxay aamini waayeen waxa indhahooda ay arkaan. waa Marwaan oo bartamaha guriga fadhiya kaas oo ku xirxiran kursi alwaax ahaa oo lugaha iyo gacmahana kaga xiran sidoo kalena afka laga xiray. Daariq ayaa markaasi kadib inta afkii uu ka furay Marwaan waxa uu weydiiyay maxaa halkaani ka dhacay. Marwaan ayaa ku jawaabay nin aad iigu eg ayaa shalay weerar igu soo qaaday aniga oo qabaar mooga kadibna waxaan miir daboolmay markii aan soo kacay anigoo halkan ku xiran ayaan is arkay markii aan miir daboolmay kadib. Daariq ayaa markii hadalkii Marwaan uu maqlay bartii uu taagnaa ka dhaqaaqi waayay yaab iyo makaag dartii wuxuuna dareemay sida loo yasay oo looga caqli badiyay isagoo xishood daraadiis dareemay in xasharaadka uu ka yar yahay ama isaga oo qaawan jidka bartankiisa uu ku socdo. sidee waxaani oo dhan ay ku dhaceen markii hore wuxuu ku fashilmay in dilaaga uu soo qabto ama ugu yaraan xog ku saabsan uu helo. taasina waxay sababtay inuu caqligiisa uu ka shakiyo. wuxuu isku haystay nin caqli badan si fududna jariimo kasta ku xallin karo balse maanta waxaa la tusay caqli xumadiisa heerka ay la eg tahay. waa sax inay jiraan dad badan oo caqli u saaxiib ah oo ku fashilmay kiisas badan inay xaliyaan balse imise qof ayaa dadkaasi ku jirta kuwaas oo dilaaga maalin dhan waqti la qaadan karo isaga oo aanan ogaanin inuu dilaagu yahay. waxaasi oo dhan waxaa ugu daran inuu necromancy uu kaashaday oo meydadka dadka uu soo bixiyey kadibna hilbahooda in la cuno uu ogolaaday. sidoo kale dilaaga la sheekaystay isagoo arrimo caadi ah kala sheekaystay. sidee ayay ku dhacday in arrimahaasi oo dhan uu ogolaado? sidee ayuu caqligaasi midaasi ugu fasaxay? maxaase ka qaldan isaga? haatan sida muuqataa wax walba waa ay burbureen. qabashadii dilaaga riyo ayay u noqotay oo rumoobi weysay. Daariqna markaasi wuxuu kusoo baraarugay codka Yaara oo leh Daariq. dhankeedii inta uu jalleecayaa kadib wuxuu ku yidhi maxaa jira? Yaara ayaa kadib waxay tiri jooji inaad naftaada sidaan aad u eedeysid waayo wixii dhacay qof kasta ayay ku dhici karaan adigana waxba kuma aadan qaldamin. Daariq ayaa kadib jawaabtii qaatay oo waxa uu yidhi kaliya doqon weyn baa maalin dhan waqtigiisa la qaadan kara dilaaga ubaxa gaduudan isaga oo aanan ogaanin qofka uu yahay. Yaara ayaa kadib waxay ku tiri ka waran raggii kale ee hawsha kula waday soo iyagana waqti lama qaadan sidoo kalena ragga booliiska uu maalin walba uu ku dhex jiro xogtoodana uu ogaado soo iyagana waqti lama qaadan maxaad ka leedahay kuwaasna? Fariid ayaa markaasi kadib soo hadlay isaga oo yidhi ma jira cid ogaan karta dadka muuqaalka badasha si fududna ku fahmi karaya xitaa waalidiinta ayay ubadkooda ay ku qiyaani karaan. Yaara ayaa intaasi kadib waxay la hadashay Daariq oo waxay ku tiri Daariq oo dhageyso jooji eedda aad naftaada aad ku wadid una fikir qaab macquul ah ka fakir tallaabada xigta ee aan qaadi lahayn. Daariq oo yaaban markaasi ayaa wuxuu yidhi maxay tahay tallaabada xigta? Yaara ayaa kadib waxay tiri tallaabadeena xigta waa muhiim in tallaabadaasi qaadisteeda aan ka bilownaa su-aashan sidee ayuu dilaagu ku ogaaday wax walba oo ku saabsan qorshaheena yayna yihiin cidda ka caawisay isaga si uu qorshahan uu u fuliyo. Daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi sida ay u badan tahay tan iyo markii hawshaani aan bilownay dhaqdhaqaaqeena oo dhan ayuu la socday dilaaga. Daariq ayaa markaasi kadib inta uu aamusay dhankii Fariid soo eegay isagoo markaasi ku yidhi waxay kaloo ila tahay adigana sheekadaada inuu dilaagu og yahay oo uu la socdo. Fariid oo markaasi indhataag uu ka soo haray ayaa markaasi kadib tallaabadiisii dib u gurtay isaga oo yidhi yaa muxuu yahay arrinka uu igu ogyahay aniga? ma waxaad kala jeedaa inuu ogyahay aniga inaan ahay qofka sirtiisii ka shifay? Daariq ayaa kadib wuxuu ku yidhi waa siday u badan tahay. Fariid ayaa intaasi kadib Daariq su'aal weydiiyey oo wuxuu yidhi taasi ma waxay ka dhigan tahay inuu anigana isoo raadin doono? Daariq ayaa wuxuu yidhi waxba ha ka walwalin waayo awood uma lahan inuu xabsiga uu kuugu yimaado. Fariid ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi marnaba ma aanan filaynin erayadan inay afkayga ka soo bixi doonaan balse waa xaqiiqo aan aad ugu faraxsanahay in xabsiga aan dib ugu laabto. Yaara kadib waxay soo kala dhex gashay sheekadii u dhaxaysay Daariq iyo sidoo kale Fariid oo waxay tiri sheekadan aan meel iska dhigno oo aan diiradda saarno su-aasha muhiimka ah ee hor taala.
daariqna markaasi inta uu kacay ayaa yaara waxa uu ku yidhi xaqiiqdii aniga waan daalay sidii aan u fikirayay, maskaxdiina waa ii daashay, waxaan u baahanahay nasiino dheer, marka dilaaga iyo amiiradda jaxiimaha isla aadaan waan ka dhex baxayaa. Intaasi markii uu yirina ayuu ka soo baxay gurigii. Yaara ayaana markaasi kadib soo daba kacday iyada oo ku tiri ii ogolow inaan ku raaco. markaas ayuu weydiiyey sababta, waxaanay ugu jawaabtay waayo waxaan dareemayaa in xaalkaadu uusan hagaagsanayn. daariq ayaa markaasi kadib ugu jawaabay maya, waxaan doonayaa keligay inaan ahaado. Kadibna gaarigiisii ayuu kusoo dhacay oo waxa uu soo jihaystay dhanka iyo gurigiisa. Markii gurigii uu yimid waxa uu arkay xaaskiisa oo fadhida qolka fadhiga, gabadhiisana ay dhabta ay ku hayso. Indhaheeda ilin ayaa soo buux dhaafisay. Markaas ayaa isaga oo yaaban waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay? Uma aysan jawaabin, balse mar kale su-aashii markii uu ku celiyay ayay waxay ku tiri waxba ma aysan dhicin. daariq ayaana markaasi kadib xaaskiisii usoo dhawaaday isagoona damcay in gacanteeda uu qabsado, balse waxaa lama filaan ku noqotay markii uu arkay wejiga xaaskiisa oo cara xoogan ay kasoo muuqatay, fadhigana uga kacayso. Markaas ayaa inta uu qabtay waxa uu weydiiyey maxaa kugu dhacay, bal ii sheeg. Xaaskiisii ayaa markaasi mar kale waxay ugu jawaabtay waxba, aniga ha isku kay dabaalin, waayo aniga waan ogahay wax walba. daariq ayaa markaasi kadib waxa uu yidhi ma aanan fahmin waxaad ka hadlayso, ma ii sheegi kartaa waxaad ogtahay sidaanna kuu galay? Markaasi inta gacantiisa iska fujisay teleefoonkiina ay soo qabatay ayaa daariq wuxuu arkay qoraallo fariin ahaa kuwaasoo isaga iyo gabar Axlaam la yiraahdo oo saldhigga kala shaqayn jirtay ay isweydaarsadeen. Dhambaaladu waxay ahaayeen kuwo jecel xili daariq iyo Axlaam ay ku heshiiyeen inuu daariq xaaskiisa uu furo kadibna iyada uu guursado. Markaasina daariq xaaskiisii waxa ay ku tiri wax walba wad isdhaafsateen adiga iyo naagtaasba waan ogahay aniga. daariq ayaa markaasi wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa uu dajiyo, balse waxa ay ku tiri isdaji, iskana jir inaad isku daydo inaad aniga been haddii sheegto, waayo aniga waan ogahay dhambaaladan inay xaqiiqo ay yihiin, islamarkaana aad isweydaarsateen gabadha gacanyaraha ku ah ee Axlaam. wax walba oo idinka dhexeeyana waan ogahay. daariq ayaa markaasi kadib xaaskiisii weydiiyey sidee ay kugu soo gaareen dhambaaladan, balse xaaskiisa ayaa ugu jawaabtay sidee igu soo gaareen dhambaaladan? waxa kuugu muhiimsan waa su-aashan soo ma ahan. hagaag waan kaga jawaabaya ee dhegeyso. qof aanan aqoonin ayaa ii soo diray. daariq ayaa markaasi kadib waxa uu yidhi ma waxaad aaminaysaa marka qof aanan la aqoonin wax uu kuu soo diray? xaaskiisii jawaabta ay bixisa waxay ahayd ma waxaad leedahay dhambaaladan waa been aan xaqiiqo ahayn? daariq ayaa markaasi kadib cabaar inta uu aamusay kadib waxa uu ku yidhi aniga ma garanayo waxaan kugu jawaabo. xaaskii daariq ayaa kadib waxay tiri kaliya waxaan doonayaa hal su-aal inaan ku weydiiyo oo aad iga jawaabtay sida saxda ah. maxay tahay sababtaad sidaan u samaynayso? daariq waa uu awoodi kari waaya inuu juuq uu yiraahdo. Markaas ayaa mar kale xaaskiisii hadalkii qaadatay oo waxay ku tiri waxaan kuu ahaa xaas wanaagsan, waxaan kuula dhaqmay sida ugu fiican, adigana sidaan ayaad abaal iga dhigtay soo ma ahan? intaasi markii ay tiri kadib waxay bilowday inay daariq ay riixdo iyada oo bannaanka guriga u riixaysay oo ku lahayd orod bax iyada aad, waayo ma doonayo aniga inaan mar kale wejigaada aan arko. daariq mar kale waxa uu ku yiraahdo xaaskiisa ayuu garan waayay, waayo Axlaam waxay ahayd gabadhii uu ka dhex arkay inay Yaara ay tahay oo xiriirka la sameeyay muddadii ay gacanyaraha ay u ahayd. sidaasi aageed ayuu u doonayay inuu jaceylka Yaaro isaga ilowsiiyo, xaaskiisana jaceylkii hore uu u qabay haatan uma u qabo, waana sababta uu doonayay inuu u furo. markaas ayuu gurigiisii inta uu ka soo baxay gaarigiisii uu ku soo dhacay isagoo mar kale jidka isku soo daayay. dhowr mar ayuu halis uu galay inuu shil uu galo, naftiisana uu ku waayo xawaaraha sare ee gaariga uu ku waday darteed. xoogaa yar kadibna gaarigii ayuu joojiyey isaga uu ka soo degtay oo ciil daraadiis neeftu ay ku badatay. maxaa ku dhacay isaga? sidee wax walba qaabkaani fudud ay uga burbureen? wuxuu waayay naftiisii, wuxuu waayay shaqadiisii, wuxuu waayay gurigiisii iyo sidoo kale xaaskiisa. daariq arrimahaasi oo dhan waxaa ugu muhiimsanaa waa kuma qofkaan aanan la aqoonin ee taleefankiisa inta uu jabsaday xogtii ku jirtayna bixiyey oo xaaskiisa u diray. sidee ayayse macquul ku tahay taleefankiisa in la jabsado? waayo wuxuu haatan uu wataa teleefoon casri ah oo booliiska oo keliya quseeya, kaasi oo sahal aysan ahayn in gudaha loo galo oo la jabsado.
marka sidee ayay wax ku dhaceen, sideese loo jabsaday iyo su-aalo kale ayuu isweydiinayay. waxaa kaloo isweydiiyey macquul ma tahay qofka sidaani sameeyey inuu dilaaga yahay. isagoo sidii wadada bartankeedii u taagan ayaa dhambaal loo soo diray kuna soo dhacay teleefoonkiisii, gaar ahaana teleefoonkii Yaare uu waday kaasoo weli isaga gacanta uu ku haya. markii uu kala furayna wuxuu noqday dhambaalkii kaga yimid dilaaga ubaxa gaduudnaa, kaasi oo u qornaa sidan: sidee u aragtaa hadiyadda aan kuu soo diray Daariqow, ma kula tahay xaaskaaga inay ka heshay? Daariq ayaa markaasi wuxuu dareemay xanaaq dartiis dhiigga maskaxdiisa inuu la karayo, waayo waa dilaaga qofka wax walbaa qarribay, mana u eka mid halkaani ku joogsan doona. waxaana macquul ah in intaani ka badan uu sii qarribo haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Daariq markii uu la hadlaya dilaaga waxa uu moodayay inuu sheekada isaga uu hogaaminayo, dilaagana xogtiisa uu heli karo, balse xaqiiqda waxay tahay in dilaaga mar horeba hogaanka uu hayay sheekada, Daariqna lagu ciyaarayay. Daariq ayaa intii markii dilaaga uu sidaasi usoo qoray kadib wuxuu ugu jawaabay: waxay ahayd dharbaaxo kulul, balse ogow sheeko halkan inaysan ku dhammaanaynin, ciyaarna waa gelin dambe. Dilaagii ayaa markaasi kadib wuxuu kusoo jawaabay: sheekada dhowaan ayay soo dhammaan doontaa. Daariq ayaa markaasi wuxuu yidhi: maxaad kala jeedaa? mise waxaad idhihi rabtaa waalida waxay gaarsiisay heer aan dhibaateeyo amiiradda? Dilaagii ayaa markaasi kadib fariintii soo qoray oo wuxuu ku yidhi: aniga horta ma aanan fahmin sirta ka dambeysa sababta aad amiiradda sidaan oo dhan ihtimaam ama ahmiyad gaar ahaaneed aad u siinayso. miyaysan hal qof uun aysan ahayn, ilaan aniga horteeda dad badan ayaan dilay oo amiiradda keliya ma aysan ahayn waxa aan tooganayo ama aan dilayo. maxay tahay sababta aydan dadka kale sidaan ihtimaam aadan u siinin balse amiiradda aad u siinaysaan? markaasi ayaa Daariq wuxuu yidhi: warkaasi iga soo xir ee ii sheeg sidee arrintan aad ku samaysay. Dilaagii ayaa markaasi wuxuu ku jawaabay: qofka saaxirka ah sirtiisa marnaba ma kashifo. Daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi: wax ma kuu sheegaa doqonkiyow, marnaba uma aaba yeelaya inaad tahay qof muuqiisa isbedela iyo in kale. xitaa haddii aad kun weji aad leedahay ama aad shaydaanka qudhiisa aad tahayba, maray ahaataba gacanta ayaan kugu dhigi doonaa, maalintaas ayuuna war kuu yaallaa, waayo aniga ma jirto cid igu dheedheeli karta. Dilaagii kadib ayaa wuxuu u soo qoray: Daariq, waan ku sugayaa anigana. Daariq ayaa markaasi kadib ciil daraadiis wuxuu damcay teleefoonkii inuu dhulka uu ku garaaco, balse waa uu isceliyey isaga oo gaariga ku soo dhacay soona aaday dhanka iyo Yaare iyo gurigeedii. markii uu soo gaaray ayay Yaare aragtay xaaladda ka muuqata Daariq oo waxay tiri: maxaa kugu dhacay Daariqow? waa maxay waxa ka muuqda? xaalkaada caadi ma ahane. Daariq ayaa markaasi kadib kursi meesha yaalla intuu ku fariistay wuxuu ku yidhi: dilaaga ubaxa gaduudan wax walba oo nagu saabsan wuu ogyahay. wuu ogyahay inaan isla shaqayno, xitaa wuu ogyahay qofka telefoonka kala hadlayay inaan aniga aan ahaa. Fariid ayaa markaasi kadib inta uu soo boodo waxa uu yidhi: waa la hogay, war meeshaan iga wada balaaye muska inta aysan ka soo gelin. Daariq ayaa intaasi kadib wuxuu yidhi: intaasi kaliya kuma eka, waayo wax walba wuu naga ogyahay, xitaa siraheenna noo qarsoon iyo kuwa gaarka ahba wuu la socdaa. Yaare ayaa kadib waxay tiri: maxaad kala jeedaa midaas? Daariq ayaa wuxuu ku jawaabay: wuxuu jabsaday teleefoonkaygii isagoo gacanta ku dhigay dhambaalo shakhsiyadeed oo aniga aan lahaa. Yaare ayaa weydiisay su'aal ahayd: maxay ahaayeen dhambaaladaasi? Daariq ayaa markaasi ugu jawaabay: muhiim ma ahan waxay ka hadlayeen, balse waxaa muhiima in dilaaga annaga wax walba uu naga ogyahay, annagana aan isaga waxba aanan ka ogeyn, sidaasi awgeed ayuuna mar walba tallaabo nooga horeeya annaga. Yaare ayaa kadib waxay tiri: xaqiiqda waxay tahay hadalka aad leedahay in uu ii xaqiijiyey fikrad hadda ka hor igu dhalatay, haatana waxay ila tahay qorshihii aan dilaaga ku soo qaban lahayn ugu dambeyntii inaan gacanta aan ku dhigay. halkaa ha inoo joogto qaybta xitaa ay sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. anigoo Maracadde ayaa idinla socodsiinaya. Maracadde show ayaad ka daawanaysaan. saaxiibkii Anteena ayaa tarjumay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonno. nabadgelyo.